qaybta labaad ee enemigu waxay ku bilaabataa sida tan. ugu dambeyntii ninkii u dhumaalaysanayay sida qarsoodiga ahaa ayaa xarunta soo galay, wuxuuna arkay madaxdii kollejka oo cilmi baarayaasha tusaya ukunta mastuulaaga. markay si dhow u fiiriyeen waxay ogaadeen in ukunta ay dilaacday. baaritaanka kombuyuutarka wuxuu soo muujiyey in dilaacaasi uusan shil ku imaanin balse uu ka yimid geedi socodka soo baxista ukunta. saynis yahanadu waxay isku dayeen inay jebiyaan ukunta si ay u arkaan in wax nool ay ku jiraan, laakiin madaxdii kollejka ayaa u hanjabay oo ku amray inay bannaanka u baxaan, isagoo ku andacoonaya inay khatar ka dhalan karto in mastuula lagu sii daayo jaamacadda. markuu dadkaas bannaanka u saaray, ninkii ayaa si qarsoodi ah u soo galay, wuxuuna sawiro ka qaaday ukunta. wuxuuna go'aansaday inuu jebiyo qolka uu ku jiro ukunta oo uu qaato si uu u helo 5 milyan oo abaalmarin ah haddii uu iska iibiyo. laakiin markii uu aad ugu dhowaaday ukunta, wuxuu bilaabay inuu arko waxyaabo dhalanteed ah, waxayna si xun u saameeyeen jirkiisa. wuxuuna go'aansaday isagoo gacmo maran inuu iska soo laabto. si lama filaan ah, nin kale ayaa markii dambe gudaha u soo galay, wuxuuna jebiyey shaabadii ukunta, wuxuuna dhiiggiisa ku quudiyey gudaha ukunta si uu uga soo daayo boqorka mastuulaaga. dhanka kale, jaamacadda gudaheeda, dagaalkii Caesar iyo May wuxuu ku soo dhammaaday barbardhac kadib markii qarax weyn labadoodaba meel fog uu ku tuuray, korontadana meesha laga jaray. markay istaageen si ay u eegaan waxa dhacay, waxay arkeen raadad cago gubanaya oo dhulka ku yaala, taasoo muujinaysa inay dhici karto in Jihaan iyo gabadha kale ay halkaas ay mareen. intaas oo dhan oo ay dhacayaan, saaxiibkeena Maagiin isna buurta ayuu kor ugu socdaa isagoo gaari wata, isagoo ay wehelinayso gabadhii quruxda badnayd ee Naano. intuu safarka ku jiray ayuu aragti ka helay Mingi, kaasoo ku dhahay, waxaan kugu caawin karaa inaad qalbiga Naano heshid, laakiin jooji inaad noqoto qof cabsi badan. raac taladii aan hore ku siiyey oo u keen hadiyad xilliga dhalashadeeda. Maagiin wuxuu go'aansaday inuu ubaxyo u keeno, Mingina wuxuu ballan qaaday inuu ka caawin doono arrinkaas. markii dambe waxay fadhiisteen buurta dusheeda si ay cagahoodana ugu qoyaan biyaha ilayska buurta. Mingi ayaa ku tiri, waxaan rabaa inaad ku soo biirto ururka ardayda si aan kuugu noqdo walaashaada ka yar, aniguna waan ku ilaalin doonaa. Maagiin wuu ka fikiray, wuxuuna weydiiyey Caesar. iyaduna waxay ku tiri, guurka Caesar wuxuu ahaa siyaasad, laakiin anigu waxaan ahay qof xor ah. Maagiin wuxuu markaa ku yidhi, waxaan ogahay dhimashadii Aki iyo wiilka kale, waana ogahay inay ku dhoweeyeen iyaga. gabadhii waxay ku tiri, Maagiin ma aha keliya iyaga, macalinkaygii Mansi isna wuu dhintay, laakiin isaga wuu ka qariyey ardayda, aad ayaana ugu xumahay arrinkaas. waxay intaas ku dartay, ugu dambayn qof walba wuu dhimanayaa, aniguse mararka qaar halkan ayaan imaadaa si aan u eego xidigaha, balse caawa cirka daruur baa qarisay. Maagiin aad buu u murugooday, wuxuuna soon xasuustay ereygii sirta ahaa ee Mingi uu u sheegay. si lama filaan ah, gaari iftiinkiisa ayaa soo shidmay, muusigii ayaa si dhaqso ah ku bilaabmay, dabdamisyana cirka ayay ku qarxeen iyagoo sida camal ubaxyo u samaysmaya. daruurahana waxaa dhexdooda ku qornaa fariin odhanaysa, dhalasho wacan Naano, oo lagu qoray habka keliya ee hooyadeed hore u isticmaali jirtay. markaasay oyday. Maagiina wuxuu garwaaqsaday inay weli xasuusanayso hooyadeedii geeriyootay, taasina ay tahay sababtii ay ugu naxariisatay markii ay isbarteen, maadaama isaguna uu markaas ooyay waalidkiis dartooda. Maagiin wuxuu ku yidhi, gabadhii laga bilaabo maanta waxaan kuu noqonayaa walaalkaaga ka weyn, waxaanan ku soo biirayaa ururka ardayda. kadibna waxay dib ugu laabteen gaariga oo jaamacadda ayay hoos ugu degeen. Naano markaas waxay heshay signal kaasoo ka yimid Caesar oo ku leeyahay jaamacadda waa la soo weeraray. Maagiin aad buu ugu walwalay arrintan, laakiin Naano waxay ku tiri, jaamacaddu way iska difaaci doontaa cadowgeeda, inta aan dib ugu gaarayno dagaalku uu dhammaan doonaa. dhanka kale, Jihaan iyo gabar timo gaduudan ayaa dagaal ku jira iyagoo isticmaalaya awoodaha dabka. waxay u muuqataa in gabadhu xoogaa isaga ay ka sarrayso, balse ma doonayso inay disho oo keliya waqtiga ayay ku luminaysaa. dhanka kale, ninkii faniga ahaa ayaa mooto ka baxsaday isaga oo jaamacadda ka sii cararaya, laakiin si lama filaan ah, gaarigii Maagiin ayaa gadaal kaga dhacay. ninkii wuxuu qabsaday Maagiinbo wuxuu ka dhigtay la hayste. markii ay is hor yimaadeen, waxay noqotay in ninkaas dhab ahaantii yahay saaxiibkiis ciyaarta ay isla ciyaari jireen, oo magaciisu dhab ahaan yahay Tanga, balse naanaystiisu waa Taylor. markay iskarteen, waxay noqdeen kuwa saaxiibtinimo ka muuqata, laakiin Tanga wuxuu ka codsaday Maagiin inuu caawiyo, wuxuuna ku qasbay inuu la hayste ahaan ku sii haysto. isla markaas waxay maqleen wax weyn oo gadaal kaga soo dhacay, jawiguna mid kulul ayuu noqday. markay gadaal u jeesteen, waxay arkeen wiil dab ku guban yahay oo dhimasho ku sii socda, isagoo yidhi, walaalkay aaway. dhammaan dadkii way ka carareen, ardaydiina way rasaaseeyeen, laakiin xabadihii waa dhalaaleen intaysan wiilku gaarin. macallimiintu waxay ogaadeen in wiilkaasi uu yahay boqorka mastuulaaga ee ka soo baxay ukuntii dilaacday, kaasoo ah boqorka dabka iyo birta. wuxuu awoodaa inuu xakameeyo dabka iyo birta, taasoo xabadihii ka dhigtay wax aan waxba ka tarayn. wiilkaas dabka ku soconaya weli wuxuu raadinayaa walaalkiisa. Maagiin iyo saaxiibadiis waxay isku qariyeen tiir gadaashiisa. ugu dambayntiina waxay la kulmeen Caesar, May iyo Finer. dhammaantood waxay dareemeen in wiilka dabka ahi inuu Maagiin daba socdo, markaas ayay qariyeen isaga oo barkad ku dhuumanaya si uu uga fogaado. Caesar iyo Mayse bannaanka ayay u baxeen si ay ula dagaalamaan, isla markiiba waxay awood u heleen daciifnimadiisa ka hor inta uusan dib ugu soo weerarin. intaas oo dhan iyadoo socdaan, qofkii heshiiska la lahaa May ayaa telefoon ugu sheegay in wiilkaasi dhab ahaantii uu yahay boqorka mastuulaaga Constantine, oo xaaladda jirkiisuna aysan deganin. wuxuu sheegay in haddii jirkiisu uu burburo, uu dhalin doono duufaan ka xoog badan qaraxyadii nukliyeerka ee Hiroshima iyo Nagasaki. si arrintan looga hortago, wuxuu soo jeediyey in la isticmaalo xabadaha been abuurka ah ee ay ku tababartaan ardayda jaamacadda, kuwaas oo aan bir lahayn. xabaduhu wiilka dhaawac ma gaarsiin doonaan, laakiin haddii lagu dhufto in ku filan, waxaa laga yaabaa in la suuxiyo. markaas ayay dhammaantood xogta heleen, waxayna ku bilaabeen inay ku ridaan xabadaha caaga ah. Maagiin iyo labadii kale se weli barkada hoosteeda ayay ku
dhumaalaysanayeen. halkaas maagiin wuxuu dareemay in wiilka dabka ahi uu ku soo socdo, wuxuuna ku yidhi saaxiibadiis, neef ha qaadanina, biyaha hoostoodana isku qariya. wuxuu isku dayay inuu neefta isku celiyo, laakiin ugu dambayn dusha sare ee biyaha ayuu ka soo baxay, waxayna noqotay in la arkay. wuxuu is yidhi tani waa mid ka mid ah riyooyinkii aan miingi ku kulmi jiray. wuxuu ku qayliyey isagoo miingi ku aaway, wuxuuna ka baxay barkadii isagoo maraya dooxada. halkaas ayuu ku arkay wiil yar oo markuu weydiiyey meesha ay tahay, wiilkaasna waa Constantine laftiisa. Constantine wuxuu ku yidhi waxaan dareemayaa inaan horay u kulanay. markaas ayuu bilaabay inuu maagiin uriyo sidii nin waalan, laakiin miingi ayaa si lama filaan ah u yimid. Constantine iska tuuray oo ku yidhi qof kale walaal ha ugu yeerin. markaas ayuu maagiin si degdeg ah u soo toosay, wuxuuna ogaaday in Constantine halkaas dhab ahaantii uu joogay. Finer iyo Tangase barkadii kama muuqdaan. intaasi kadib madaxii jaamacadda ayaa yimid, wuxuuna maagiin ku yidhi kaalay iso raac. wuxuu geeyey meel munaarad ah, wuxuuna siiyey qori iyo xabad gaar ah oo loogu talagalay in lagu dilo mastuulaaga. wuxuu ku yidhi adiga keliya ayaad xabadan isticmaali kara, maxaa yeelay dhiigaaga ayaa awood kuu siinaya, balse qof kale wuu burburi lahaa. intaas kadib wuxuu yidhi anigu meel furan ayaan kuu samaynayaa si aad Constantine ugu dhufatid, adna waxaan rajaynayaa inaa hawshan soo gabagabayso. dhanka kale Constantine waxaa lagu garaacay xabadihii caaga ahaa isagoo taagan munaarada. markuu hoos u eegay wuxuu arkay Tanga iyo Finer, wuxuuna ogaaday in run ahaantii uusan maagiin u soconin ee uu Tanga uu daba joogay. wuxuuna bilaabay inuu awoodihiisa dabka ka waayo gacantiisa, wuxuuna isu bedelay mastuulaagii dabta ahaa. laakiin madaxii jaamacadda ayaa soo dhex galay oo isticmaalay farsamadiisa sixirka ahayd si uu u gaabiyo wakhtiga awoodiisa ay sii soconayso, wuxuuna jeexay duleel si uu maagiin u toogto. maagiin xabadii gaarka ahayd ayuu ku dhuftay isagoo kaashanaya miingin, wuxuuna baabiyey awoodaha boqorka mastuulaaga. kadib madaxii jaamacadda wuxuu amar ku bixiyey in loo bedelo xabado dhab ah si mastuulaaga jirkiisa loo jeexjeexo. Constantine wuxuu si degdeg ah ugu degay Tanga, wuxuuna joojiyey xabadihii isaga oo istifaacaya. wuxuuna ugu yeeray Tanga isagoo leh walaal ilaa dhammaadkiisii. Tangase ma uusan fahmin waxa uu ka hadlayo, wuuna cararay isagoo galay keynta. laakiin intuu sii socda wuxuu bilaabay inuu arko aragtiyo ka yimid nolol hore. ugu dambayntiina wuxuu ogaaday in isagu dhab ahaantii uu yahay boqorka mastuulaaga dabka iyo birta. Norton iyo Constantine waxay ahaayeen walaalo. Constantine wuxuu ahaa kan yar. markuu Norton uu arkay walaalkiis oo hortiisa lagu dilayo, wuxuu ku noqday qasrigii ku yaalay hoosta badda. halkaas ayuu ka soo bilaabay inuu xooggiisa soo celiyo, wuxuuna sidoo kale soo toosiyey adeegiisii weynaa ee mastuulaaga badda. dhanka kale madaxii jaamacadda wuxuu kulan la yeeshay ilaaliyihii, wuxuuna u sharxay sababta mastuulaaga dhab ahaantii aan loo dili karin. wuxuu yidhi marka mastuulaaga la dilo ka hor intuusan dhiman waxay sameeyaan ukun oo lagu kaydiyo DNA-gooda, kadibna ukuntaas ayaa dhalinaysa boqor mastuulaaga cusub. sidaas darteed si loo hubiyo in mastuulaaga si dhab ah loo tirtiro, waa in la dilo inta aysan ukun samayn oo ay dagaalka ku jiraan. taas ayaana fursad fiican ka dhigaysa in Norton la dilo, sababtoo ah hadda ayuu soo toosay, welina xooggiisa oo dhan uma hagaagsano. sidaas darteed waxaa la qorsheeyey in weerar lagu qaado qasriga badda si loo dilo Norton. kooxdii hawsha loo xilsaaray waxay ahaayeen Kaysar, Nano, maagiin iyo ardayadii cusbeed ee timo guduuda ahayd. maagiin markii hore aad buu uga soo horjeestay qorshaha, laakiin markii Nano iyo asxaabtiisu ku dhiirigeliyeen, ugu dambayntiina wuu aqbalay, wuxuuna tababar u sameeyey si uu isugu diyaariyo. markuu tababarkii gaabnaa dhammaystay, wuxuu u raacay kooxdii markab hawada ku socda si ay u gaaraan qasriga boqorka mastuulaaga. Nano iyo maagiin ayaa loo doortay inay hoos u galaan si ay u sahmiyaan goobta oo una xaqiijiyaan in boqorku halkaas uu ku jiro, maadaama la filayay inuu weli hurdo uu ku jiro. markay hoos u degeen waxay raaceen isla dariiqii Aki iyo Yu oo ay hore u mareen. ugu dambayntiina waxay gaareen qolka boqorka mastuulaaga oo ay baareen. iyagoo isticmaalaya xeelado maskaxeed waxay xaqiijiyeen in qolkaasi dhab ahaantii uu yahay qolkiisii uu ku noolaa isaga iyo walaalkiisa Constantine. waxay halkaas ka qaateen agab cilmi baaris ay u baahan karaan, waxayna bilaabeen inay kor ugu soo laabtaan. laakiin magaaladii hoosta badda ku taalay ayaa bilaabtay inay dhaqaaqdo oo qaloocato, taasoo ka dhigtay tartan mid ku cabsi gelinaysa si ay halkan uga baxaan. intii ay baxayeen waxay heleen meydkii Yu oo gacanta ku haya buug weyn, taasna way la baxeen. ugu dambayntiina way baxsadeen inkastoo qalabkii dabaasha ee maagiin uu burburay. Nano qalabkeedii ayay siisay maagiin iyadoo tidhi anigoon qalab lahayn waan gaari karaa dusha sare. kadibna labadooduba waxay bilaabeen inay dabaashaan. dhanka kale markabkii hawada ayaa weerar ku qaaday mastuulaaga badda oo burburiyey. Kaysar ayaa hoggaanka qabsaday, wuxuuna amar ku bixiyey in ay baxsadaan, laakiin mastuulaaga ayaa daba maray oo ku qasbay inay tagaan meel xeeb ah oo uu Norton dusha ka taagan yahay. Norton wuxuu ka booday buurta, wuxuuna fuulay dhabarka mastuulaaga. markaas ayuu isticmaalay awoodihiisa si uu isaga iyo bahalkii isku daro, kuna bedelo makhluuq weyn oo u muuqda sida bahal laga cabsado aynu ugu yeerno Tangamon. Tangamon wuxuu bilaabay inuu eryo markabka hawada si uu u burburiyo. Kaysar wuxuu go'aansaday inuusan orod ku baxsanin, balse uu dagaalku wajaho, maadaama uu ogaaday in Jihaan halkaas uu joogo oo uu adeegsanayo awoodiisa ahayd Psycho. Kaysar wuxuu sameeyey qorshe ah in la mashquuliyo Tangamon inta lagu jiro dagaalka foolka fool ah, kadibna Jihaan uu ku dhufto weerar awood badan. marka labadooda awood isku dhacaan, qarax weyn ayaa dhici doona oo qof kasta indhobeel ku ridi doona. xilligaas ayaa la ridayaa gantaal gaar ah oo lagu beegsanayo jirka dhabta ah ee Norton si loo burburiyo. sidaas bay ku sameeyeen, waxay hoos u daadiyeen kabsad si maagiin iyo Nank ugu baxsadaan, halka iyaguna ay la dagaalameen Pokemon. Kaysar maaski ayuu xirtay, kadibna awoodiisa ayuu dhaqaajiyey si uu ugu beegsado mastuulaagii. Tangamon wuxuu iska celiyey xabadihii oo dhan sidii jilaa filim shiinays ah jilaaya camal, laakiin taas waxay qayb ka ahayd qorshaha Kaysar. ugu dambayntiina wuxuu sii daayey farsamadiisii si uu u soo
muujiyo Jihan kaasoo weerar ku qaaday Norton isagoo ka dulboodaya dabka boqortooyadiisa. Norton isna wuxuu ku jawaabay weerar la mid ah midka lagu soo qaaday waxaana dhacay qarax weyn. Qof walba indhihiisa waa la iftiimiyey marka laga reebo Caesar oo hore indhaha ugu xirnaa. Isaga ayaa markaas amray gabadhii timo guduuda ahayd inay rido gantaalka. Gantaalkii wuxuu ku dhacay jirkii dhabta ahaa ee Norton wuxuuna ku tuuray istixyaac qoto dheerka badda ku yaalay taasoo calaamad u noqotay guushii ay heleen. Dhanka kale Magin iyo Nano waxay gaareen goobtii badbaadada. Nano ayaa Magin gudaha ugu riixday oo albaabka xiftay. Magin wuu yaabay oo wuu la fajacay waxa ay samaynayso laakiin isla markiiba Tangamon oo quusaya ayaa ku muday qalbigeeda mid ka mid ah qodxihiisa taasoo sababtay inay halkaas ku dhimato. Markuu arkay fursadiisii kaliya ee uu guur ku rajaynayay oo hortiisa lagu dilay, Magin wuu carooday oo maskaxdiisii ayaa qasantay. Caro iyo murugo ayaa ka dhigtay inuu galo gudaha fikirkiisa halkaas oo uu kula kulmay Minzi kaasoo ku yiri waxaan kugu caawin karaa inaad garaacdo boqorka mastuulaaga oo aad badbaadiso xaaskaaga mustaqbalka. Magin waa uu xiiseeyay hadalladiisa laakiin wuxuu dareemay caro iyo nacayb naftiisa ka yimid oo wuu is yiri mar walba dadka kale waa ay badbaadiyaan anigu cidna waxba uma qaban karo miya. Laakiin iyadoo uu Minzi caawinayo wuxuu adeegsaday sixirkiisa ugu weynaa taariikhda wuxuuna la hadlay isagoo keligiis ah si uu isaga saaro murugadiisa iyo niyad jabka taasoo ah wax xitaa dadka sheekadan daawanaya aysan weligood isku daweyn karin. Markaas kadib Minzi wuxuu u sheegay inuu samayn karo heshiis ah inuu Magin siin doono 4 rabitaan iyo awood uu ku badbaadiyo Nano kuna dili karo boqorka mastuulaaga balse shuruudu waxay tahay haddii Magin nolol maalmeedkiisa uu hal mar uu dareemo kelinimo markaas jirkiisa iyo naftiisa ay noqon doonaan hanti uu Minzi uu leeyahay. Magin shuruudaha wuu aqbalay isagoon ka labaynin. Minzi markaas wuxuu siiyey awoodo fara badan waxaana ka mid ah awood uu ku isticmaali karo dhammaan luqadaha ruuxaanta ah, kordhin xoog iyo xirfado kale. Wuxuu sidoo kale ku yiri buugga weyn ee gacanta ku hayso ma aha buug caadi ah, waa weel lagu keydiyey 7 hub oo la yiraahdo awoodda sixirka mastuulaaga. Hubkaas waxa asal ahaan sameeyay Norton qarniyo hore si loogu dilo bini'aadamka. Magin markuu awoodo cusub uu helay wuxuu ka soo baxay goobtii badbaadada oo wuxuu soo badbaadiyey Nano. Hadda wuxuu ku neefsan karaa badda hoosteeda wuxuuna bogsiiyey dhaawaceedii wuxuuna burburiyey qodxihii caloosheeda ku jiray. Nano ayuu ku celiyey goobtii badbaadada oo kor ayuu u diray kadibna wuxuu wajahay Norton oo diyaar u ahaa inuu isaga u cuno sidii kalluun yar camal. Magin wuxuu adeegsaday awoodiisa ruuxaanta xadidan si uu u xiro farsamooyinka Norton kadibna wuxuu soo daayay hubkii awoodda mastuulaaga si uu ula dagaalamo cadowgii weynaa. Dagaalkooda wuxuu socday waqti dheer iyagoo isweydaarsanaya weeraro xoog leh. Ugu dambeyntiina Norton wuxuu qirtay in Magin uu yahay qof la mid ah oo awoodiisa camal leh markaas ayuu iskariyey si uu uga weeraro harka. Laakiin Magin wuxuu adeegsaday awoodda Psycho si uu ogaado halka uu ku jiro wuxuuna ku garaacay weerar elis ah isagoo la kulmay jirka dhabta ah ee Norton. Markuu wejigiisa fiiriyey wuxuu ogaaday in uu yahay saaxiibkiisa Taylor. Taasi waxay ku riday murugo weyn wuxuuna ka xishooday inuu dharbaaxadii ugu dambeysay uu siiyey. Norton ayaa markaas qoorta ka qabtay laakiin Minzi ayaa gacanta ku dhigay jirkiisa wuxuuna ku dhuftay Norton mid ka mid ah hubkii 7 awoodood taasoo sababtay inuu ku quuso badda oo uu dhinto. Dusha sare Caesar iyo kooxda kale waxay badbaadiyeen Nano waxayna siiyeen gargaar degdeg ah. Gabadhii timo guduuda ahayd ee la yiraahdo Zero waxay sidoo kale ka heshay Magin dusha badda isagoo dul sabaynaya waxayna keentay markabka cirka. Inta Norton uu dhimanayay wuxuu isku dayay inuu weerarkii ugu dambeeyay soo tuuro laakiin Maya ayaa ku dhuftay xabad iyadoon loogu talagelin inay hawsha noocaas faraha la gasho sidaas ayuuna cutubkii Norton ku soo dhamaaday. Markii wax walba ay degeen gudoomiyihii jaamacadda ayaa u yeeray Magin isagoo safarka dib ugu sii jira jaamacadda. Wuxuu u sharaxay cidda Tanga uu dhan ahaantii uu ahaa wuxuuna sheegay in boqorada mastuulaaga ay isticmaalaan DNA-gooda si ay u sameeyaan jir cusub oo ay ku sii soo noolaadaan. Tanga wuxuu ahaa jirka cusub ee uu Norton ku soo noolaaday. Markii uu saaxiibkiisa hortiisa ku dhintay xusuustiisii dhabta ahayd ayaa soo laabatay wuxuuna noqday Norton. Magin wuu dhageystay sheekada oo dhan laakiin weli wuu ka murugooday maadaama uu ahaa saaxiibkiisii kaliya ee internetka uu ku lahaa. Ugu dambeyntii madaxa ayuu ruuxay si uu u muujiyo inuu fahmay. Gudoomiyuhu wuxuu ku yiri amurugoonin waayo adiga ayaa badbaadiyey malaayiin qof laakiin tani waa sir cidna ma oga sida Norton dhab ahaan uu dhintay. Qorshihii Caesar wuu fiicnaa laakiin ma filayn inuu kaliya ku filan yahay si uu Norton u dilo. Waxaa muuqata inaad wax kale naga qarisay. Magin ayaa markaas soo xusustay heshiiskii uu la galay Minzi wuxuuna ku yiri naftiisa waan fahmay. Waad ku mahadsan tahay inaadan i weydiin wax badan. Markaas gudoomiyuhu wuxuu siiyey warqad wuxuuna ku yiri waxaan ka helnay in waan aan la garanayn adiga ayaa lagugu talagalay. Markuu furay wuxuu ogaaday inay tahay warqadii hooyadiisa ka timid. Waxay ku tiri waan ka xumahay inaanan ku garab joogin laakiin waan ku faraxsanahay sida aad noqotay. Aniga iyo aabbaha waxaan rabnaa inaan ku aragno markaad ka qalin jabiso jaamacadda.